الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الوقت ما تشوكو كيدوغو. If you will allow me, I want to speak in Somali. And if our brother Lieutenant General may not understand, I will give him a translation later. Because the subject matter is very close to my heart, and I want the members here to understand me locally. Su'aasha waxaa waaye afka iyo iska leh. Walaalayaal, maanta aad baan u faraxsanahay. Mawduuca aan halkan kaga hadlayni iyo arrimaha aan kaga hadlayni waa wax loo baahnay long time ago since sessional paper 65 was came into being. Misbedel. Afwan. Marka waxaa jirta wax inay nolol design gareey ama annaga aan maaragtay isu design gareyn aan garanaynin oo nagula habsaamay. Dhalinyaradii heli jiray division 1 heli jiray waxaa ka reebay ummadda ka reebay oo waqtigooda ka lumay caleentan geedkan la yiraahdo qaad. Haddaad tagtid Mandera ama Wajeer, dadka waalan waa dadkii jinaska ahay oo division 1 ama primary ha kaga baxeen iskuulka ama secondary ha kaga baxeen halay waay. Right now waa arkaysa graduates oo waalan baad arkaysaa. Maro waa wataan laakiin ma shaqeyn karaan. Waxaan rabaa tan af Ingiriis aan ku sheegaya maadaama ay ku qoran tahay af Ingiriis. Walaalayaal, bal ila dhageysta 1939 nin cadaan wuxuu qoray bal dhageysta. My experience is that people under the influence of qad live in a dream world and lose all sense of reality. In large doses, qad makes them excitable, but not, in my experience, violent. A qad addiction gradually becomes a listless, lazy, good-for-nothing person who lacks all energy and ambition. mid kalena waa jirtaa xagga galmadana uma fiicna. mid kale nin cadaan oo isbitaalka Wajeer ka shaqeynay 1949 wuxuu yiraahday a man in hospital indescribably emaciated as a result of chewing qad was brought there, and he says it seems to be rather a waste of time and effort providing medical services for the betterment of the health of the local people while we allow them to destroy their physical and mental health with mirah. Look, ayadaha quraanka markaad dhageysatid waxa uu haya gacantiin ha isku dilina, tahluuka ha isku ridina. So annaga dib kuma raadsanin. Waxaa nooga daran maanta wixii laga hadlayo halka waa dhaqaale, economy. Waxa laga hadlayo waa education. Waxa laga hadlayo waa caafimaad. Intaba qaadka uu nala dagaaltamaya. Ma ogsoontiin hal ilig ah shariicada islaamka inay tahay 5 neef oo geel ah hal ilig. De waa iska qarabsanaa. صدنا إلا بكوار كله شكل كله وبقول لي نحن ما قام باللغة وبدأ حل مركا أنت نحب بانت هالشيء ما أنت أنا واحد جلان لهاي chairman إيو باترون بيجيجا إن سيدي بيبا ما أعرف تقريبا كله هذا إن قادنا هو بحنا إن شاء الله next time إن الله سيسان واحد وحاوي أرنتان إناي بلابتك هذا الكيد conversation ما أركتي أرنتان إناي بلابتوه قرد بدو أكسونتين ولا له ريكوست أرنتان مل باي أي ما أرتي سجى مالين governors MPs senators MCS even محل international government كشغينا علماء ذودي قال لي مسلم ويسقط تجاه أنا نوديستان هل مال إن أنك استغنى سوما ولا ليالو
awey saddexdeena gaabana awey aw labaatan iyo afarteen la soo doortay MPLkeed awey afarteen nominated MPs awey ma aragtay wasiirkeeni awey maxaan meesha fadhinaa war waxa naga reebay umada oo aan isu maqli laanahay hadda dhibka ugu weyn meesha waxa way talada way fiicantahay waa ku habsan laana Soomaa maxaa yeelay qaad baan u dhex jira qaadkana ma jecla dadka inay tashadaan saa maqsuudin horta haji inaan tashana odayga cadaanada wuxuu yiraahday waraba badan tihiina amaad dhaansataan oo isku darsataan ma aragtay arrimihiina waa badanahay waa kan maanta meeshan aan isugu nimid arrimo muhiim aan ka hadlaynaa bahalkan dadka naga reebin waana xaraan ya maqsuudin saas bahalka horta waa xaraan waxa lagu qiyaasay Soomaaliya kaliya in 1.2 billion US dollars ay ku baxay annaga ugu yaraan 500 oo milyan ayaan ku cunaqaad Northeastern Kenya markii soo ku firaarna hadii la baday hadii qashimaa kale lagu daray qaadada lagu daray waa hundreds of billions miho dawladda baan eedayna annagana lacagteena bilaash ku bixinayna galay ma arag laga keenay Mareykan oo yellow la yiraahdo yellow maize fardaha la siiyo ayaa habeen maalin oo kaansan ugu lahays يعني علينا دي لا أنك عبصنا وأنت الشنا السلام عليكم